تضربي يبرتي في أيام رسول إليه وغير قدنا وها كل عجبتال يعني صوته لي واقرتا غير بدل وصوراء وإذا أفضل وكان إسلامين يأصل يتمنكي وفوحة بالبيت وحكونا فواياصل واقرتا الإسلام يدعو إليه يقدر يصدفها هاي يلغوي ويلغوها هاي باقود بهالكا adigu ehelada ka mid tahay aniga gabadha weyn oo reerka abada u amaan walaal ninka gabadha ilmaadeer baawna meesha abada qof baa ku meedwaayay iyo qofna waa ku dhaawacantay wax jaban iyo waxa uu ka wusaan iyo wax gaadi dib ka dhacayo harad ka dhacayo dableefay noqday waan gartay ilaa hadda dhaawicii xagee la keenay maydkiisa ma laas waxa la keenay aabban lagu sabcaamay xalay baakuriyi wax digidin iyo gaar iyo waqaada iyo lixsaabi xaaladu sidaanu ismacwaan xaaladu musbayn wadku habeenay lixsaabi lagu gaaday dadkii gurmaday way gaareen waadkii u tageen dadkii digjoodin iyo waxay sameeyeen dadkii meeshii wixii noqotay oo mari ah oo markii hore loo baxay oo dadka dad baxay ay ahaayeen meelin bedelahoodii iyo wuxuu inta laga dhaqiyay ahaayeen hore waxa ku guulayeen waan shilalay baynaha ugu tagi karaan dadku waxa laga waayay wadiyaa iyo sababtoo ah waa lagu tagayeen wadadku waa isku baabay waxa dhacday dadkii afartii meydka ahaa iyo lixdii dhaawaca ahaa waxa la doortay aw baa la soo saaray waxay yimaadeen kowdii guduhun oo maanta ay waxay soo gaareen meel wadu tagto halkaa waxaa lagu aartay markii meesha wadadu tagto dadkii meydka ahaa tuulada canjee la yidhaahdo ayaa la keenay waan gartay dadkii halkaasaa lagu kala guray dhaawaca waa la soo qaaday ambalaasyo iyo halkaa waxbaa tegay ciidankuna waajibay Puntland waa ka qayb qaatay hawshaas la soo gaaraya ilaa hadda marka maxaa ogaateen oo diyaaradaas aad sheegtay inay wax soo tuurtay inay diyaarad ahayd inay wax kale ahayd maxaa ilaa hadda xog hesheen waxaan xog haynaa gartaarkii guriga ku dhacay oo dadka ku dhacay oo xoolaha ku dhacay qayb badan baa meeshii ka taal shirka badan iyo isagoo qayb duuban oo xoog leh oo meeshii taageer lawaadida filbadiisii iyo islaamisiya xawaaraha bahalkaas ku shaqeeyeen oo ilaa 360 ilaa ku nafwaayeen dadka intaa leegana wuu ku dhibaatoon ما وحوي عبيد وحكي وحي هاي وحي مسوسوني waatay dawladda bala socodsiiseen ilaa hadda ma haysaan wax idin ka soo gaaray dawladdu way ogtahay gurmadada iyo insha Allah way ogtahay waa ogeysiinay hadiiba la ogaa inuu dagaal ka socday buuraleyda calmiska dadka reer miyiga ah ee aad ku jirtaan maan la idin sheegin inaa meesha ka guurtaan idinka laftiinu markaa dagaalka maqasheen anagu waan guuray meesha aanu guuray ma maraynay umana haysano in cid isku haysato iyo maciisii kada degsiyo badan baa degan waxa weeye waa meeshii loo baxay mana maraynay in halkaas uma haysay in la soo gaari karo iyo cid aan hadda ku jirayno oo timina ma jiro waayahay maxaa codsanaysaa oo dawladda Puntland iyo cidii kale warka ugu gaabadho aad fariin u diri lahayd dibka dhacay anagu dawladdu runtii waxa weeye waanu aragnaa inay hor ku jirto dadkuna ilaahay baa dhimashada u furay dawladda waxaanu rabnaa dadka wixii dhintay inay waxa weeye karaamkooda wixii kaga soo in la helo iyo xaquuqdooda